waxay yiraahdeen maaha ciyaaryahan aad u fiican aad ay u dabacsan yahay hogaamiyana maaha Virgil van Dijk waa la iska indhatiray markii uu ciyaariyay horyaalka Holland laguna shakiyay Scotland xitaa lagu qoslay markii Liverpool ay ka bixisay 75 milyan pound sterling. And they just paid £75 million for you. I was like, I've watched Virgil van Dijk at Southampton. He's good. That's a lot of money. laakiin Southampton ay ku muujiyay wadiisa Liverpoolna wuxuu ka dhigay derby aan la jebin karin ku guuleystay Champions League, Premier League, ciyaaryahanka sanadka ee Premier League xitaa wuxuu 7 dhibcood u ka hoos maray ku guuleysiga Ballon d'Or-ka. goolii taariikhiga ee uu kooxda u dhaliyay Liverpool waxa kamid ah goolkii uu ka dhaliyay kooxda Chelsea ciyaartii finalka ee Carabao Cup taasoo u keentay inay ku guuleystaan koobkaas. laga soo bilaabo in la iska diidi jiray ilaa uu noqday mid ka mid ah daafacyada waaweyn. Virgil van Dijk legacy iyo taariikh ayuu kaga tegi doonaa Liverpool.